agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta beeraha Somaliland Axmed Cali Maax oo ay weheliyaan safiirka midowga Yurub qaabilsan dalka Somaliland iyo Soomaaliya iyo sidoo kale maamulka gobolka Togdheer iyo ka degmada Burco ayaa kormeer ku tagay mashaariic ay hay'adda FAO iyo sidoo kale wasaaradda beeraha Somaliland ka hirgelisay deegaanka beer kuwaas oo isugu jira kinaalo iyo sidoo kale cagafyo loo qaybiyay dadka beeraleyda ku dhaqan deegaankaasi beer waxaanay mas'uuliyiinta kormeereen kinaaladaasi iyo sidoo kale cagafyadaasi isduwaha wasaaradda horumarinta beeraha gobolka Togdheer Maxamed Cabdi Maxamuud Gurey ayaa ka warramay faa'iidada laga helay mashruucaasi wax soo saarka ee hay'adda FAO iyo sidoo kale wasaaradda beeruhu ka hirgeliyeen deegaankaasi beer meeshii aynu tagnay waxa weeye kanaalkii beereed ee la oran jiray odayaxun waxay ka mid yihiin saddexdii kanaal ee ay samaysay hay'adda FAO lacagtana ay siisay AU waxa kale oo halkan jooga cagafyadii ay bixisay hay'adda FAO iyo taa bixisay AU-da ee madaxay u sareeyay marayo waa ugu mahadnaqaynaa waxa kale oo aanu doonaynaa beer waa 14 kanaal 14kii saddex bay sameeyeen oo ah odayaxun janaale iyo maaxato waxa ay 11 yagana waxaan doonaynaa in la sameeyo beer waxa ku yaala 1350 beeralaya iyo 14 iskaashato khibrad 2018 dayrtii baa la beeray imika haruurkaynu maraynay waa boqollagu saddexaad ee laga gooyay odayaasha deegaanka beer ayaa iyaguna u mahadnaqay hay'adda FAO wasaaradda beeraha iyo sidoo kale midowga Yurub UAE-da oo bixisay adduunkii halka ku baxay iyo FAO iyo wasaaraddii beeraha oo xoog ka geysatay waxa halka aanu mahadnaqaynaa wixii wax tarka halka ka muuqanaya wax nooga qabtay tacabkii hay'adda FAO iyo madaxdeeda iyo wasaaraddu geerisay aanu ka shaqaynaa waa laga faa'iiday si fiican baa looga faa'iiday alxamdulillahi rabbil caalamiin dhulaan beeraba aan jiraan biyii gaadheen oo beera noqday mashruuca inta uu socday ka haween ahaan anagu waxaan nahay dadkii aad iyo aad uga faa'iiday haddaanu nahay beeraleydan ka faa'iideysatay kinaalka saddexdan kinaal ee la qoday gudoomiyaha gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi Walaal iyo maayir ku-xigeenka degmada Burco Maxamed Xasan Jaamac Xoday iyo agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta beeraha Somaliland Axmed Cali Maax ayaa dhamaantood bogaadiyay mashaariicda hay'adda FAO iyo wasaaradda beeraha Somaliland iyo midowga Yurub ka hirgeliyeen deegaanka beer ee gobolka Togdheer runtii iyadoo aanay ku koobnayn waxqabadka ay FAO ka qabato gobolka Togdheer intana quraanay ku koobnayn haddana waa mid ka mid ah mashaariicda ugu waaweyn ee ay gobolka ka qabatay mashaariic kale oo fara badan oo humanitarianka ah oo biyuhu ka mid yihiin oo beeraha kale ay ka mid yihiin oo ay ka qabatay waan uga mahadnaqaynaa runtii hay'adda FAO iyo AU-da iyo wasaaradda beeraha runtii oo suurto geliyay shaqadanu inay ka qabsanto gobolka sidoo kale waxa halkan laga marxaati furay faa'iidooyinka ka dhashay waxqabadkan si ay maaragtay u sii horumarto wax soo saarka deegaankanu oo aad arkayseen wixii ka soo baxay in durbaba lagu caawiyay hay'adda aafada qaranka insha Allah haddii saas oo kale loo sii horumariyo gacan qabadkana waxa aan maaragtay rajaynaynaa in guud ahaanba qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland uu ka mid noqon doono doonariska caalamka ama deeq bixiyaasha wax bixiya haddii la horumariyo la maalgeliyo waxaan u baahanahay 14ka degmo in mashaariic fara badan in laga fuliyo oo ay u baahan yihiin sida dhaamankii oo kale si wax soo saarka gobolku runtii uu taaba qaado oo meel wax tar weyn uu gaadho waxaan ka filaynaa maanta mar haddaad odayaasha waxaad noogu tirsantahay reer Burco maadaama aad ahayd deegaanka reer Burco aad ka dalaacday wax weyn runtii indhahaguna ay maanta arkayaan in mashaariic fara badan oo reer Somaliland aanu kaga duwanay inaad runtii saxiixi doonto oo wax ka qaban doonto lacagtii ay bixiyeen runtii taana waa sharaf aad u weyn weeye oo ay indhahoodu maanta ku daawanayaan hadday calaf noqon lahayd haddii cagafyadii ay bixiyeen ay noqon lahayd iyo hadday noqon lahayd iyo raashinkii go'ay ee meeshan laga raray waxa weeye in sare loo qaado wax soo saarku waxay ku habboon tahay marka la isgacan qabsado waxaanay ku qurux badan tahay dadka taakulada bixiya marka ay wax soo bixiyaan inay arkaan resultigiyo soo baxay aad bay farxad ugu tahay
taasi maanta waxay ina tusinaysaa ama EU ay tusinaysaa waxyaabahana soo gaadha in sidii loogu talagalay aanu u fulino taasina guul weyn bay noo tahay guusha weyn waxa suurtageliyay hay'adda FAO laftirkeeda oo gacan weyn ka qaadatay safiirka midowga Yurub u qaabilsan wadamada Soomaaliland iyo Soomaaliya Nicholas Berlanga ayaa isaguna sheegay inay sii wadayaan mashaariicda ay ka wadaan deegaanka Beere iyo sidoo kale guud ahaanba Soomaaliland. You can count on the European Union to accompany you as long as you continue preserving the conditions for us to help you. I mean, the best way for us to help you to continue accompany you. Khalil Barra Urhan, TV-ga qaranka Soomaaliland, magaalada Burco.